تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا. بسم الله الرحمن الرحيم. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii horumar ummadaada oo aad ka daawanaysaan TV-ga caalamiga ah Universal TV. caawa barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa faa'iidooyinka laga helo mashaakilaadka guurka. waxaa dhici karta qofka inuu yaabo ma mashaakilaadka guurka ayaa faa'iido laga helaa, yani waa sax faa'iido ayaa laga helaa. maxaa yeelay waxaa la yiraahdaa dhibka dheef ayaa ka dambeeya. runtii mashaakilaadka guurka faa'iidooyinka laga helo haddii aan mid idinkuga dhigo, midda koowaad waxa waaye waxa ku aqoonsanaysaa nafsadaadii. nabigeena allahumma salli sallam alayhi wuxuu yiri man carafa nafsahu carafa allah. qofka hadduu nafsadiisa ogaado meeluhu ka liito, meeluhu awood ku leeyahay, ilaahayna macnaa wuu ogaadaa. maxaa yeelay qofka nafsadiisa hadduu ogaado nafsadiisu xakameeya. markii aan arooska galayno waxaan u maleynaa inaan yani nafsadeena aan naqaano, laakiin ma naqaano. xaaskeena ayaa mararka qaarkood noo sheegta meelaha aan ka liidano. sidoo kale markii uu mashaakil dhaco, haddaa nafsadaada isfiiriso adaaba yaabayso, waxaa dhehaysaa adigii maaba sidaan u dhaqmaaya. marka taas waxay kuu suuragelinaysaa inaad nafsadaada ogaato, aad nafsadaadii xakameyso. sidoo kale khubarada guurka waxay leeyihiin mashaakilaadka guurka dabeecadaadii ayay kor u qaadaysaa. macnaa dad badan ayaa ku dhahaya war nin hebelow saa u guursatay waa isbedeshay, xoogaha ninkii celceliska ahaa matihid waa degtay. macnaa waxa waaye mashaakilaadka guurka ay xalkii iyo wixii aad samaysay ayaa waxay kuu suuragelinaysaa inay dabeecadaadii horumarto. waxaa halqabsi laga hayaa halyeegii Gandhi ayaa wuxuu yiri in wadan lagu xoreyn karo qori la-aan waxaan ka bartay yiri guurkayga. yani Gandhi oo Oxford Cambridge aaday iyo waxaasoo dhan aaday ma dhihin in wadan lagu xoreyn karo qori la-aan waxaan ka bartay jaamacadeeda. wuxuu yiri waxaan ka bartay guurkayga. yani guurka iyo xajka iyo yani waxyaabaha oo yani oo sabarka iyo waxaas u baahan dabeecadaadii ay kor u qaadaysaa. waxay ka dhigaysaa qof hogaamiye ah. sidoo kale mashaakilaadka guurka faa'iidooyinka laga helo waxaa ka mid ah jaceylkii ayay kor u qaadaysaa. macnaa runtii marka guurka uu bilow yahay, yani jaceylkaas waa jaceyl iska xumbo ah. waxay dhahaan yani jaceyl iska Hollywood ah, laakiin jaceylka dhabta ah wuxuu bilowdaa markuu mashaakilaadka guurka dhaco. maxaa yeelay ninkii wuxuu ogaanaa inuu xaaskiisa ka maarmeyn, xaaskiina waxay ogaanaysaa inay ninkeeda ka maarmeyn. waxaa dhici karta 2 habeen 3 habeen inaan laysla hadlin. marka la heshiiyo qof walba wuxuu ogaanaa muhiimadda qofka kale. maalan ninkii ayaa xaaskiisa markay la heshiiyaan wuxuu leeyahay war shaqada waa tagay maahane niyaddeeda qof qalbigayga oo dhan ma joogin. macnaa mar walba waxaan ka fikiraya mashaakilaadkan iyo dhibaatadan. xaaskii waxay leedahay yani 2 maalmood ma hurdin, macnaa hurdamayga imaan yani mashaakilaadkan iyo murugtan awgeed. laakiin markay isku soo noqdaan yani jaceylkii ayaa cusboonaanaya, waxay noqonayaan fakaanama ayagoo yani shahr casal soo galay. laakiin taas uguma jeedo inaad mashaakilaad doonto, laakiin mashaakilaadkii haddii oo aad si wanaagsan u wajahdaan, yani faa'iidooyinka laga helo ayaa sidaas ah. laakiin mashaakilaadka hadday faraha ka baxdo oo ay taas dhibaato ayay keenaysaa. marka waa mashaakilaadka waa inaad aragtaan dhinaca fiican, inaad ka aragtaan. yani marka mashaakil dhaco ha u arkin galaaskan biyaha nusa eber ah, waa inaad fiirisaa galaaskan biyaha nusa buuxa. marka taas waxay kuu suuragelinaysaa inaad si wanaagsan u wajahdo. tan afaraad oo aan yani aad ka baranayso waxay tahay, waxaa baranaysaa dabeecadaha dadka kale. yani markii guurka jiro, xafladda arooska ay jirto, dadkoo dhanaa damaashaadayo, dadkoo dhanaa buraanburaayo, yani midaa gabyaayo. laakiin markii uu guurka laga baxo uu mashaakilaad dhaco, dadkii ayaa kala baranaysaa. yani soomaalida waxay dhahdaa tol waa hal la khalay. tolka yani waa ari la khalay. ariga dhinacu macnaa maalan hilibkiisa
garabka ayaa fiican, dhinac xun iyo dhinac fiicanba waa leeyahay. sidoo kalena tolka dad fiican iyo dad xunna waa leeyahay. waxaa lagu ogaadaa markuu mashaakilaadka dhaco ayaa lagu ogaadaa. waxaa arkaysaa gabadhii walaalkeedii oo ku leh gabadha yani walaalkeeda oo dhahayo waryaa ninkaaga u noqo, ninkaaga ixtiraam, ama gabadha hooyadeeda oo ku dhehayso saddexdeeda hadda inta isoo dhig, ama yani macnaha gabadha reerkeeda waa ka yani dad fiican dad xunaa ku jiro, ninkana reerkiisa dad xun iyo dad fiicana ku jiro. marka lamaanaha waxay ogaanayaan dadka fiican iyo dadka kale, hadhoodii waxay u suuro gelinaysaa inay ka digtoonaadaan. macnaha taas ayana macnaha waxay kaloo ku suuro gelinaysaa shaqadaada marka aad shaqaysanaysid dadka inaad kala barato. marka waa muhim, ha u arkin mashaakilaadka guurka wax laga ordo. macnaha mashaakilaadka waa la wajahaa, si wanaagsanana la wajahaa. tan ugu dambaysa oo shanaad, macnaha adiga adaan waxaad noqonaysiba nabadoon. macnaha markii aad mashaakilka ka baxdo, tan kale uga udubto, aad ka xaliso, yani oo aad hirarka guurka ama hirarka nolosha maalin walbo oo aad ka hortegayso, adiga laftirkaaga ayaa waxaa ka dhigaysaa nin nabadoon ah. gaar ahaan markii 40 oo kuu buuxsamo oo noloshii dhib iyo dheefba aad soo aragtay, yani waxaa noqonaysaa nabadoon. adigaaba dad maslaxaynayaba, macnaa lamaane oo mashaakil haysto adaa maslaxaynaysid. yani beelo xataa isdagaale xataa inaad maslaxaysadaa dhici karto. laakiin taas waxaa lagu helaa mashaakilaadka inaad si fiican u wajahdo oo aad ka ordin, oo aad furiin iyo waxaas iyo ku degdegin, carabkaagana aad ilaaliso. daawadayaal waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysateen. ilaahay ha nagu wada anfaco. haddii wax xun afkayga ka soo baxeen, aniga iyo shaydaanka ayay naga timid. wax alla wixii fiicanna ilaahay xaggiisa ayay ka timid. ilaahay adaa mahad iska leh. waxaan idin rajaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo gurigiina guri mawaddo leh ilaahay ha idinka dhigo. caruurtiinana caruurta indhahoodii yani indhihiina ku qawabsataan ilaahay ha idinka dhigo. caruurtiina balaayada ilaahay ha ka koriyo. ilaahay guryihiina guryo oo mawaddo leh ilaahay ha idinka dhigo. jiilka cusubna oo hadda soo baxaya oo Soomaaliya oo macnaa dhalinyarada hadda guursatay iyo kuwa guursan doonaba inay noqdaan guri oo farxad leh, soona saara jiil ama qaran oo quwad leh oo xikmad leh hadduu ilaahay yiraahdo. ilaahana waa anfaco. tan iyo mar kale daawasho wacan. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر، وتغرد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر. غزون العز ترسلها بكف الحب والطهر.